بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قولت يا الله كدوا هذا ورولي دافع عالم كانوا ديري أو اسم موسمكم حتى كل داير سن تلفزيون كوفر قلبت سوماليا KGS TV وركن ويبقى 16 كوي هاي استوديو كوة تلفزيون كوفر قلبت سكلي مقالة بيدابا أنا أبشر محمد نور من دان الآن سين الدري ريدونا وضبط وركا عالم كان كدور كرام ونصرهم كان سين كهينون ويبقى كوميت أها xiriirka balooniga lugta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ku taasiiday dilkii linjeysidii gudoomiyihii isboortiga degmada Afgooye ee gobolkaas Shabeellaha Hoose maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Bay ya deeqdaawo ee ka wareeji agaasimaha isbitaalka degmadaas Diinsoor dowladda Soomaaliya way baa qalab caafimaad oo la kabaaro cudurka coronavirus deersiday degmada Marka ee gobolkaas Shabeellaha Hoose maamulka degmada Baydhabo ee gobolka Bay ya way baa kormeerana goobo ganacsiga iyo jidite saameynta ka waldadeen roobabka kaga baday deegaankaasi qaar kumad dadka baahiyaalka gedisan qaba ee ka noolaan magaalada Baydhabo yaa codsaday in la hadeersi gargaar maadaama laga guda jiro bil barakaysan ee Ramadaan wasaaradda caafimaadka yaa faahfaahiday xaaladda aan ka dambeeyay ee cudurka coronavirus ee dalka Soomaaliya guuliyaal qodobkan warka binaankan way banagaday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Malaysia oo aadka kalsoonida la qaadahay قولت يالها أنا سيبي بهاينا وضبط وركا عالم كان كدور كرام ونصروك كان سين كهين حتى النسمة لي أسوي أفتسن قولت يال هنسنا قدو فيله xiriirka balooniga lugta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya yaa ku taasiiday dilkii linjeysidii gudoomiyihii isboortiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahinta warkaasi Ahmed Buule yani fiiriye ururka banooniga lugta koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waliba ku taasiyeena geeridii ka kooyta Ilaahay naarisa Abdulle Olaad Qanyare oo hay gudoomiyaha isboortiga degmada Afgooye oo aminkii halay ay dilka dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose مسؤولين يقولوا بهم كترسن أورك بنونو لقطة كونفور كبير سوماليا أو جيك شرجرات قبضان حفظ كمجالات بيربو يوالي بيوسكم ده يوم كتاسينا إلى هين نهرسا عبدولي أولاد غنيرة أو مين كهلا يتكوه هو يسنجوك الدلين دقمد أفجو قبل كشبه الله هوسه بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون ما يميلون كتاسينا ولا الكاينة هل يجينا توبرها إنه قول كبر كهاي كونفور قلب الصوماليا may anka tacsiyaan qaraabadiis iyo bahda isboortiga oo dhan Soomaaliya gaar ahaan bahda isboortiga koonfur galbeed anoo ka hadlaw bahda isboortiga koonfur galbeed may waha ximin weyn yaanoo baahi Ilaahay naxariisa may baan ku tacsiyeen walaalkan Abdulle Olaad Qanyare gaatimo oo hay gudoomiye isboortiga ee degmada Afgooye oo xalay لكدلي دقمة أفجوي ما يبلغنا إنا لله وإنا إليه راجعون إلى أن نحرس ما يبقى هاليي أقارن كصومالي لهمري أو ما يبقى إيد كلام مهم بعض إسبورتس كصومالي كلام أنكو بجري مركب ما يبلغنا تعسيس إيد أنكو هنا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت نفكست مع انتهاء المدرسة ما يبقى أنتم تعسيه ولا الكي عبدولي أولاد غير قاتمو oo hamiinkii xalay hay la kadilay degmada Afgooye mayba laha guud ahaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan koonfur galbeed ee helshay iyo qaraabadiis dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee ku taasiyay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun may antum ku taasiyay walaalkay Abdulle gaatamo oo hay macalinka oo tababarka oo buurtiyaaryaalka koonfur galbeed atana ninka magacaawna gudoomiyaha xiriirka degmada Afgooye ee qaybta isboortiska وحال مقالة أفجوي لكدلي ما أنتم كتعسي فذي هيركي قرابدي صاحب يالشي
iyo bahda sports meel kasta iyo roga ma ilaha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gudoomiyaha sports koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Ali Dollar iyo waliba xildhibaan Madkar Macalin Aadan yaa waliba yoon dhidin joogta asiyo ondirana Ilaahay naarisa Abdulli Olaad Ganyare oo minka halay ay koox hubeysan oo ka dileen usoo ka jara salaada taraawixda waliba niyo Ilaahay uu toogana anta jannatul firdawsi Ilaahay ku waraab gudoomiyaha sports ka degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose كل نفس دقيقة الموت ما يفضل إن أنا تنقل تعسية ولا الكي عبدولي أولاد غير قاتمه هاي قدوميه الركوب دعكت دولة قبلت كونفرقة ودولة قدوميه الركوب دعكت دقمة أفجوية ورنتي حالة اللي كدلي مقالة أفجوية رنتي ما هاي قف إيد مهم ك بعض كوب دعكت كونفرقة بعد يقول دهان سومالي ب رنتي أتمنى إنك ما قاعدنا قدوميه سبورت دقمة أفجوية على ما يبوها ما يبغى تربان كويتو إلى هاي أوفسدي رنتي ما يبغى لقيت مهم إن هاي بعض الأسبورتس كدورة جوات كونفرقة بالسومالي يقول دهان مل رأي إن شاء الله كونفرقة بيتب رنتي ما يبغى واجي والله كوبا كرمة ما يفضل أن تنكو تأسيينا قوس جي هلجي غرابدس يقف كاست أو كوبا هبة رنتي ما يبغى غيره قف كاست واجبك أتا قف كاست مسلون أنا غيره دلهم يبهلي إن شاء الله ما يبغى ما يفضل أن أنتو كرمة مل رأي إنكو تأسيينا فمل شيء قوس جي رنتي ما يبغى غيرون إذن تابتي إذن كحونو إني من أنتم كتعسيين ولا كان مرنا صاحب كان هذا جري نلاقينا رئيس عبدولي قاتمو وتي الله ما يل رئيس أنكويتي نحلي حق درم أو مرنا ولا أنكو جيسن نفسه وقال لي ما دام تيدي سلاماتي طبعا قف أو ما يل رئيس الدنيا أنت تذكروه تام بحياتي غصبنا عني سبحة لكن ولي بيد أنكو مرجوني مثل بردل كيف سنة أهلدي قرابدي سكولمدي أما هو ميل رئيس أصحابه دمانتي جيك اللي كيف صحينا ما دام أو ميل رئيس وقت أو رمضان أنا ودي بجماعة أنا سكوين كلهم كان إني قف بني آدم كه مربى أنا إن هابس دم يقبلنا نروح أما كورونا دلي أما سكست نمضي لكن إني سبب ستي أو عن حق درن سبب ستي إن هلا إبعاد يصدو أما لنكسادي مساعد يا إيد أنكو حون إن شاء الله ولنا رجعنا هدي إلهي هالك نجدا من يسجينا هذا إلهي أنك بشاري أنك أبع المري أن كتاب في من الدير إن شاء الله أنت دبعا أبيل رئيس جيسة البكاسنا ولي إلهي كتوانا إنيس ميل رئيس مالن تقيام كل حساب تمام إن شاء الله أحمد إبراهيم بولا تلفزيون كأيو راديها كونفور قلبيت مقالة بيدبو maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Baay ayaa deeqdaawe ee ka wareejiyay agaasimaha isbitaalka degmadaasi Diinsoor faahfaahinta warkaasi bay bannihaye aadan Cabdinuur maamulka degmada Diinsoor oo deeq daawo ku wareejiyay tiimka caafimaadka Diinsoor daawadaas oo ku soo aadayso xilli ay jirto baahi weyn oo loo qabo agab iyo daawo caafimaad oo ayna xadidantahay isu socodka doolamaadka howlwadeenada isbitaalka ayaa ugu mahadceliyay maamulka degmada Diinsoor sida hufnaanta ay ula shaqeynayaan ayna ugu warqabaan baahidooda caafimaad ugu horeyn waxa goobta ka hadlay Dr. Cabdullaahi Sani oo sheegay inay ku faraxsan yihiin daawada la soo gaarsiiyay maanta waxaan joognaa suuqnahay isbitaalka weyn ee degmada Diinsoor waxaana deeq soo gaarsiiyay maamulka degmada Diinsoor iyagoo la soo wakiishay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya طبعا aad ugu faraxsanahay maadaama anagu aan nahay tiimka caafimaadka oo degmada waan sugeynay waana ka filaynay in wasaaraddeena ay garabkeena soo istaagi doonto sida ay ugu macquulsan ay mar walba baahida ay jirtay ayna ay ugu jawaabi doonaan sidoo kale maadaama hadda xilliga lagu jiro yahay xilli oo lockdown lagu jiro oo cudur la yiraahdo COVID-19 oo wadanka dhibaato xoog ku hayo waxaan rajaynaynaa in yani ay soo dhameystiri doonaan baahida kale ee maaragtay loo baahan yahay dabcan waa ognahay Diinsoor baahiyaha caafimaadka dabcan meel kasta dalka ayagoo yani ay jiraan baahiyo badan haddana Diinsoor waa ay jirtaa baahi kale hadda COVID-19 dabcan waxaa ka jiro wax la yiraahdo maxaa la yiraahdaa waxyaaba loogu baahan yahay essential waxaa ka mid ah PPE-ga waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdaa maaska anaga hadda dareemaysan ma haysano ma isticmaalano wax maaska marka waxaa dareemaysaa maamulka dabcan ay wax alla wixii gacantooda ay soo gaaraan saan ay u soo gaarsiinayaan maxaa la yiraahdaa degmadooda iyo dadka ay representative ay ka yihiin wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaan baaqo annagana ugu dirsanaynaa maadaama aan tiibka caafimaadka nahay anagoo u marsiinayno waliba maamulka degmada si transparentina hadda ay daawada ay noo soo gudbiyeen inay second time ba ay noo soo gudbin doonaan wax la yiraahdo wax loogu talagalay standard precaution COVID-19
maadaama ay xilliga waxa ku imaanayeen attentionkiisa lagu jirin iska imaan karo marka insha Allah aad ugu mahadsan yihiin intaasi kadib waxaa hadalka qaatay Dr. Cabdiqaadir Cabdinuur Cabdiqaadir oo sheegay daawada inay ku soo aaday xilligii saxda ahayd oo ayna dabooleyso baahida bukaano badan oo reer Diinsoor ah maanta inaad nagu soo wareejiso official isbitaalka aan ku wareejino isbitaalka la keenano waqti aan waa mahadsantahay warkaa guddoon waxaa sidoo kale goobta ka hadlay agaasimaha isbitaalka Dr. Cabdibaari Xaaji Maxamuud oo ka mahad celiyay deeqdii daawo ee la soo gaarsiiyay isbitaalka gudoomiye mahadsanta daawaday daawo u baahan u diyo isbitaalka sababtoo ah magaalada maadaama geeri go'an agta daawona dhawaanay ka unkoyna iyadoo aan ka mahadsanta sida oo kalsoonida leeyahay ku reegistay wasaaradda koonfur galbeed iyo cidii saadibtina mahad gaar ah oo suunagna ka mahadsantaan kala wareegnay insha Allah bukaanka xaq in liyo nasalaasiis hadii ilaahay idin cid ala cidii u baahanta bukaan walaal wali oo sagajarada degmada diyaar oo aan in la daawasho gunaanadkii waxaa hadalka soo xiray gudoomiyaha degmada Diinsoor Mudane Cabdisalaan Xaaji Siido oo sheegay deeqdan daawo inay ugu timid wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka koonfur galbeed mudana uu gacanta ku hayay gabagabadiina ay garteen inay ku wareejiyaan isbitaalka degmada Diinsoor oo sanuun dhiibtay wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka koonfur galbeed ilaa muddo malarkadii wasina heeshi xaafadtiitiyo yaashi ma ankasniya malarkadii in isbitaalka degmada Diinsoor inuu ku wareegaysna oo takhaatiirta degmada Diinsoor hordareer Cabdibaari torsanay tortoro intaas ku wareegaysnay deeqtii oo sanuun dhiibtay wasaaradda koonfur galbeed inta hortana u yaasho soo ku wareegaysnay insha Allah waa indhaagsan oo qabta oo bilaay tawfiiq insha Allah aadan Cabdinuur radio TV oo koonfur galbeed degmada Diinsoor dawladda Soomaaliya way baa qalab caafimaad ka wareejiday oo kumid ay qalab la ka baaro cudurka coronavirus degmadaasay marka gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahinta warkaasay aways okay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa daawooyin iyo qalab caafimaad uu ka mid yahay agabka shaybaarka ee lagu baaro COVID-19 soo gaarsiisay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose kadib baaqi maamulka degmada Marka toddobaadyadii ayna soo dhaafnay ay u jeediyeen dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha degmada Marka ahna duqa degmada Cabdullaahi Cali Axmed Waafow oo gudoomiyay daawadan ayaa u mahad celiyay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre sidoo kalena waxa uu mahad gaar ah u celiyay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo dadaal adag ka geysatay sidii loo soo gaarsiin lahaa magaalada Marka daawooyinkani isku duwaha caafimaadka ee degmada Marka Ismaaciil Ibraahim Danguud ayaa ka warbixiyay daawadani soo gaartay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose qalabkan soo gaaray waxa u badan PPE personal protective equipment-igi face mask baahida ugu weyn ee degmada hadda waxa waaye oksijiintii qofkii naqaska ku xirnaa oo lagu xiri lahaa ugu weyn baahida hadda jirta qalabkan hadda wax oksijiin oo ku jira malaha laakiin waxaan codsanaynaa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo koonfur galbeedba inay soo gaarsiiyaan oksijiin isbitaalka dhan degmada waxa noo yaala hal oksijiin oo loogu talagalay dadka xanuunkooda normaalka ah qaybta maternity ay taala dadka xanuunka loogu shakiyay oo naqaska ku xiran wax oksijiin oo isticmaalayna totally degmada malaha dadka xanuunka loogu shakiyay wax oksijiin oo isticmaalayna malaha waxaan ka codsanaynaa si uu dhaqsiyaha badan in la soo gaarsiiyo oksijiin fara badan si aan dadka naqaska u xiran naqaska ugu furno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha wafdiga ka imaado daawooyinkaas noo keenay iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ugu horeeyay wasiirka caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya aad ugu mahad celinaya gudoomiyaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Cabdullaahi Cali Axmed Waafow ayaa ka mahad celiyay daawadani maanta soo gaartay degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu sheegay in baahi fara badan loogu qabay gudaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose isagoo xusay in toddobaadyadii loo soo dhaafay ay magaalada gudaheeda ku geeriyoodeen ku dhawaad 30 qof kuwaas oo laga arkay astaamaha cudurka COVID-19 saakay waxaan soo gaaray oo aan gudoonay la wareegnay daawo xoog leh oo naga soo gaartay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre
daawa isnoo soo dhiibay ama xafiiskiis ka soo baxday ayaa noo timid daabadii waan guddoonnay la wareegnay maasha allah waxaan rabnaa inaan ugu mahad celinno marka ugu horreyso dowladda dhegaysatay qaylo dhaankaynii markii aan magaaladu ku aragnay dhibaato xoog leh culays badan xanuun badan oo aan qaylo dhaan samaynay oo la isugu yimiday dhaqaatiirtii iyo caafimaadkii hay-adihii caafimaadku dhan ay isku yimideen qaylo dhaankii aan samaynay dowladda ka soo jawaabtay aad iyo aad ayaan ugu mahad celihaynaa wasaaradda caafimaadka dowladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha si dhaga nugul ugu soo jawaabay baahidayni ama qaylo dhaankayni waa ugu mahad celihaynaa waxaan idin leenahay sida aad u garab taagan tihiin umadiina meel kastoo ay joogto waad ku mahadsan tihiin gudoomiyaha oo sii hadlayay ayaa sheegay in mar kale ay baaq u dirayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii ay ku heli lahaayeen oksijiin iyo sariiro maadaama magaalada marka uu sayaan wax oksijiin ah sidoo kale waxaan ku soo noqonayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowladda koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda caafimaadka dhammaan mar labaad waxay idinkugu baaqayaa mar haddii aan helnay daawadii iyo agabkii waxaa naga dhiman meeshii aan ugu talagalnay karantiilkii dadka bukaanka qaba markii la baaro la geey lahaa waxaan codsanaynaa in nolol dayactiro nolol qalabeeyo sariirihii iyo wixii loo baahnaa qofka bukaankaas u baahnaa in maaragtay loo dhameystiro mar haddaan helnay agabkii helnay dadkii in la baaro ay fududaanayso markii la baaro qofka haddii asigoo xanuunkiisii aan hubinay ma jiifi karo gurigiisa mana oola karo qofkaas in la soo qaado meel gaar lagu xanaanay ayaa u baahan yahay lagu tarankiilo marka bartii aan u baahannahay in la dayactiro la qurxiyo sariirihii iyo agabkii kale wixii kale ay u baahnaan lahaayeen inay meeshaasi ka helaan aad iyo aad u mahadsantihiin inaad maaragtay codsiga in hadin dhageysi doontaan ka jawaabi doontiin waa idinka rajaynaynaa khaasatan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waajibka ku saaran inaad gudatid sida aad hadda u gudatay oo aad soo daadaxday ilaa ay qaylo dhaankaada aad gaarsisay xafiiska ra'iisul wasaaraha waan kaaga mahad celinaynaa mudan wasiir dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal adag ugu jirta sidii ay ku xakameyn lahayd cudurkan dalka ku faafay ee coronavirus aweys muumin xasan aweys okay raadiyaha iyo telefishinka dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada Markaa maamulka degmada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa wayba kormeerka seedana goobo ganacsiga degmadaasi iyo jidteedii saameynta hoggaanka waalideen roobka u baday degmadaasi faafaynta warkaasi Faysal ya akhriye gudoomiyaha degmada Baydhabo Maxamed Isaaq Caras ayaa mayba uu kormeerka suubiye suuqa ganacsiga ee degmada Baydhabo maybaana intii uu ku guda jiray kormeerka indheenka suubiye habsami dareerowka ganacsiga degmadaasa gudoomiyaha Maxamed Isaaq Caras ayaa mayba uu ganacsatada ka nool degmada Baydhabo ee ka baaqay intii kula shaqeeyaan suuqa amniga maybaana sidaas haata uu ku hadlay kormeerka uu ku suubiye suuqa ganacsiga ee magaalada ganacsiga oo sicir barar oo maadaama jidteeda hirina degmada Baydhabo wali ka taala jidka siiro Ethiopia iyo Muqdisho jidkaas oo iyadoo xalawsan meel Baydhabo u diinbataan raashinka shalay afka bariiska $40 laga hagay $9 laga daa taasna waa ka saabsan jid xumada deegaanada koonfur galbeed ka habsatay wali baaq indirana in shacabka la gargaaro jidkaas qaabka soo buu wasaaradda ولا جود إلى دبلوسك دولات الكونفور قلبي يقع لراس وزارة ولا جود فدرال كإن شعب كل هذا وجه تسمسوبي جتيسين بارك هاي كان يقدر يواجه وجتيس مقال توم هاي ولا إمداع بربرين توقع صحات كله بربوري مركل فلان مجود هم إن قوة حالة تحتيه كتير كبرد القصون ده إنك استوى ضعاف ما هافدي هو دبلوس هافدي لكن كمان مرة أنا ورك أقول إسمه إن إلا أي حد يدرى أمي كشرينا ما دام تجرى واللي كم الله قيمة ويدمج أنا شعب أمني ولا شقي أمني ولا هربان أمني هو بالنهل والإله أمي لسوب سكر من لنك
walbarada iyo kalmaada ganacsiga wadan kun amni shaqada marka kormeerka iska dhex jira wali dadku waa madalamaad bakanagaan wasaaradda arrimaha quseeyay iyo fiican fiican bardaal koob ka wasaaradda waa hiri dawladana iyo kudii marka كمامولان ذلك مصوب إنه ولا فلان ميل ومرشان إن جرب. أنك دمبينتي قدوميها دقمة برد عليه محمد إسحاق عراس يا ما يبغى وسوي الزارة عافمات كدولة جولات كونفور قلبات سكوت سداي انتيو هلا ديران قلب عافمات سيوم قيب قاذان كورس ذوق عذر ككورونا. وزارة عافمات كانوا البابن كدرانا إن حرموا عافمات كجاود لعن إيو يجان كأو فتحادي دواتي ديزة تنروبهم كدرمن وتربنا دلاعي ولين كمهم ولين كدورنا هتل الماي شعبك بردالة قياسا بركة عي اللي بتفتح هذه إذا كتوسين في بركة ما دام البنك نووي الماين إيدهم كتمر كل فلان ما كان عاي ولا ويجي ولا كان عاي ولا شيء سأدور كلهم فرصة يلا دقلك يدود بها تكجرا الدلاء كل اثنين كاسود الطبان لي wali fadaan degmada bardaal ma degmooyinka talaabo walow dalka Itoobiya iyo Soomaaliya Kenya buu arday maadaama arday badan oo Kenya Itoobiya waxbarasho injil iskoolada kuwa say deegaanka ka sugan inta farsanaha maraha in Kenya ku Itoobiya ku ururasna data dawladaha ka shaqeeya ka jira marka si uu horsan wali fadaan in qalabka caafimaadkaas si degdegsiin inay ka diray Faysal Cadow raadiyaha iyo telefishinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Baydhabo qaar kumid ah dadka baahiyaalka shalgadisan qaba ee degmada Baydhabo iyo dalbaday in deeqlaha deersi maadaama loo guda jiro bil barakeysan Ramadaan Ali Ilyas Abdullaahi oo arintaasi aan kurgali iyo warkaasi nin akhriye naafada in dhameystirnaan xubnoosha muhiimka ah ee ahaan aan haysan walbarasho nolol fayl oo lamid ah tan dadka kale iyo ka noolyiin walina madaxda iyo shacabka reer Koonfur Galbeedka sideenna inuu hangurmadan dhibaatada anka badan iyo dareemayaan dadkan ooryaanka ayaa ah iyagoo aan haysan roon walina markaasay degayeen guri kare taasoo yoon awoodna inuu bili isku dhiibaan wama ina dado yaal hayso inada hasleena barjo guri kare ka jiraan ko number 1 anaba ko guri kare ka jira baana وبعدين ولنين قبض برشلون كنولان ميكاس رودان والدكان قبضانو غرغاريو والكاس انصوب دانو والبرشاتا قبضانو مهمة دبعة تنكمية سنتا صورت والبرشتو اللانكا دي والكسي لما هذا لاكا دي لانكا والله دي واللبر مكدما هذا ماشي ده دكا والله كيف بلنا نافذا إن دنيتنا مسلمين تتين مثلا أنا تبوسها يا رجعت صار مسؤول مكان ونجينا يالك إنه بوس مه يالك مدوه دعالة ما هيسن سوالك كبره سكولا مباني يونيفورم مباني دعالة لمباني أو تمدوه لهم قبضه ما ياو فما فدانا دولنا كوفر قبل مدنا مدها ما بكو أسدانا عبد العزيز محمد افتكر إن نافذ عن قبل كم باي ولا نيم قبض نيم هوجد نيم أتكيت ولا برشة لنا دعالة حتى سوق على كجر باللي أو فضل بدنا كجرنا إلى هاي دم دم نيم كل أدرك إلى هاي نوريجي مركب فضانا إن سوق كان ولا دم نيم كفايدة تام كفايدة ستان يا فضانا والقوين نيم قبض تام marka alxamdulillah taasaseen qodsada lahayn ma ka soo rogdan muslimiinta tin dalkii dibadda rogdan ilaahay udurkan no faaroji ilaahay maana marsi mugubun yaala dhariid fade aanata seen la hadalaw yaalkay tumi saddex unug loor misge anti intuu baadhi gamiji kor gaargaan ko maray kor anti beeran baa taa ma fardo kor wal gobashada ida aan la iibsanta yaalna awkina fu magaban dhariida liin dhamma muslimiinta may ku odsadaane inay haqul iid lana si Soomaaliya ka jar laan afurjii bijiida ka jar yaal ana dharangada
ma ogoon laakiin ilaahay galantiis wal hagili ilaahay baraka isuun may ku odsadaane ani yaalkan dhad idneen siyaan un soonkan dabyaagad ee walka soonna siyaan awlaadan dugsi iskool dhatiyorugan wal barashi fadaan kamiisa fadeen madana neerlan nuji rubaga sokortab an waysan kamiisayta oo tumiyo dhur unuga mabikor dugsiga inay kuwala iskoolkana inay kuwala dawladda baarlamaanad hildhibaan wasiir lankii ilaahay walsi madaxweynaha kan dawladda iyo tan koonfur galbeed dhaxdiyo may ku odsadaane anniyo ilguune nani araga naafadena cali ilyas cabdullaahi warbaahinta dowladda koonfur galbeed magaalada Baydhabo. wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahintii ka dambeeyay ku biidi dhibaatooyinka cudurka coronavirus ee dalka Soomaaliya. wasiirka wasaaraddaasi Fawziya Abikar yaa arintaasi faahfaahin isla markaasna ku warbiidi biiraan yala soo biyahay gooba uu saxaafadaha webiga Shabeelle gaar ahaan degmada Beledweyne sidoo saxwarmahay Maxamed Cusmaan shalay ayay ahayd markii magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan diyaarisay 500 oo hambaag oo laga hortagayo faafidda in uu fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle ay keentay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoona saakay ay keeneen meelaha webiga uu ka fataho lagu sameeyo biyo xireen waaweyn sanadkii tagay 2019 ayay ahayd markii webiga Shabeelle uu fatahaad uu ka sameeyay magaalada Beledweyne iyadoo in ka badan 500 oo kun oo qoys ay u kaceen duleedka ceel jaalle ee Beledweyne. Maxamed Cusmaan Maxamuud raadiyaha telefishinka koonfur galbeed Soomaaliya deegaanka kaliya duleedka Beledweyne. guuladaan meelisi si toosan ku daartan telefishinka koonfur galbeed stuudiyo koowad magaalada Baydhabo anoo Abshir Maxamed Nuur Mandela en sina dareeriyahay qodobkan warka binaakar bay banagaday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Malaysia oo codka kalsoonida la qaadahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Malaysia Muhyiddin Yassin iyo baarlamaanka dalkaasi aan qaado doon codka kalsoonida tumisiyadka bilatan May ee uu ka howlani la tacaalooka cudurka coronavirus intii uu nagadi madaxa isbahaysiga cusub ee talada dalkaasi haya mooshinkun ajeedinta inay codka kalsoonida la qaado ra'iisul wasaaraha iyo waliba golaha aan gudbiyay Mahadir Mohamed oo 94 jar ah isla markaasna halka ra'iisul wasaarnimada hore inuu isku azili bili Febraayo ku reed markii isbahaysigii shay uu hogaamiyay burburi guuladayaal way baantaha gabagabeeyna warwalidaafo caalamka hanoo deeri oo ay si toosan kula dareertan telefishinka koonfur galbeed KGS TV stuudiyo shay koowad ee magaalada Baydhabo anoo Abshir Maxamed Nuur Mandela en sina dareeriyay intii warkun warshay uu ku deeran ونو اسكدو ما يبصلنا نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.